وهاك صاحب يال سو دوادا oo mar kale muuqaalkeeni labaad ee qaybteena forex trading ee advanced-ga carabna markaan inaan ka hadalno wax la yiraahdo waa maxay institutional candle mise sida aad u taqaano postage-da suuqa hadii aan wax yar idin qaxo postage-da suuqa horta meel walba waa ka heli kartaa suuqa mar walba ay heshinay inter ma helaysid ilaa aad ruleska kale aan ku sheegi doono aad ka wada heshid meeshaas mooyaane laakiin postage-da meelo badan ayaad ka heli kartaa laakiin waa meesha aad postage ka heshid ma ahan inaad suuqa ka geli kartid ilaa shuruudihii kale ka heshid mooyaane marka haddii aan idiin sheego waa maxay institutional candle waxay noqonaysaa suuqii u dambeeyay oo markaas kacay candlekii ugu dambeeyay bilcagsi ku ah oo hadduu buy ahaan candlekii ugu dambeeyay sell-ka ahaa ayaa waxaa la yiraahdaa institutional candle sidoo kale hadduu uu sell ahaan suuqaas intuusa sell-kaas uusa u daadin candlekii ugu dambeeyay oo buy-ga ahaa ayaa la yiraahdaa for example tusaale haddaa idiin sheego suuqan haddeerta markuu halkan ka kacayo oo kale uu dhaqaaqan sameynayay candlekii ugu dambeeyay oo guduudka ahaa oo kale candlekan oo kale ayaa waxaa la yiraahdaa postage halkan oo kale waa postage-da lagu sheegay sidaas ayay camal ku noqon kartaa postage-da sidaas ayay ku noqon kartaa sidoo kale halkan oo kalena waxay noqon kartaa candlekan markaa ujeeday suuqan oo buy-ga oo aadahay candlekan meesha halkaas soo galay oo kale waxaa isagana la yiraahdaa isla postage-dii oo kale postage-da suuqa micnaha ereygaas candlekaas postage-da la yiraahdo waa sidaas postage-da haddii aan qoraalka yarka idiin soo qaado sharci ay lagu garto ayaa jira laba sharci waaye labada sharci wax ka badan oo ka baxsan oo shuruud kale noqon kara ma jiro labadaas mar walba labada sharci ka fiir labada sharci si aad uga fiirisid waa in dhaqaaq xooli ah uu ka daataa halkaas bise uu ka kaca yani haddii sell ahaan waxay noqonaysaa inuu ka daato hadduu buy ahaan waxay noqonaysaa inuu ka kaco oo sidee yani dhaqaaqan candlekan markaa heshay waa in candlena isku xiga oo suuqa hal jiha ujeeda ay ka daba xigsadaan sida movekan oo kale haddii movekan oo kale wax wada buy wada jeedaa oo kale marka candlena xoog leh oo kale waa in saan oo kale uga kacaan oo suuq iswato oo kale hal mar buy aad oo kale shuruudda labaad waa in la jibiyaa opposite zone-ka kasoo horjeeda opposite zone-ka aan kuu sheegayo ma aha wax kale ee waa kan zoomkan halkaan oo kale kasoo jeeda oo kale waa in la jibiya markaa aragtid kan in la jibiyo oo kale waxay ka dhigan tahay in suuqaas uu labada sharci noqdo labada sharci lagu garan karo zoomkan in la jibiyaa in dhaqaaq xooli ka kaca sidoo kale kan haddeertaan tusaalaha kuu sheegay waxaad ujeedaa asagana big move inuu ka kacay big move inuu ka kaca halkan sidoo kale opposite zone-ka ma la jibiy yes waa la jibiy waa kana institutional candle labada sharci ayaa ah labada lagu garto sidoo kale maanta dhan suuq hadaa ka baartid sell asagoo ahne waa kana waxaa ujeedaa labada sharci haddaan ka raadino in candle iswata ay halkaan ay soo dhaafeen candladaas opposite zone-kii ma jibiyeen sharcigii labaad ahaa yes labadan sharci mar walba waa inaad ka raadisaa haddii aan mar kale aan meel kale ayaan ka tuso waa kana candladii xoog u socday ma ka daateen yes waa tan opposite zone ma la jebiyey opposite zone ma la jebiyey yes waa kan kan inkastoo si fiican usoo kan u dhaweyn laakiin isla kan haddaa fiirisidba dhankan kale oo ujeedaa kan haddaa fiirisid waa kana zoonka ma laga soo daatay yes si clear looga soo daatay opposite zone-kaadi ma la jebiyey yes waa kana waa la jebiyey mar walba labadaa sharci ayaad u fiirinaysaa institutional candle sidoo kale halkan haddaa tagtid fiiri waa kana opposite zone-kaadi ma la jebiyey maxurta marka hore xoog ma looga soo daatay haa waa laga soo daatay kadib opposite zone-kaadi ma la jebiyey yes waa la jebiyey mar walba sharciyada aa u fiirinaysid institutional candleka sidaas waa hadda kan haddaa fiirisid waxaa ujeedaa in asagan xoog looga soo daatay waxaa ujeedaa opposite zone-kaadi in la jebiyey waa ujeedaa marka halkaan oo kale haday noqotana waxaa ujeedaa in
sharciga koowaad oo ahaa in laga soo daato, in oppositionkaadii la jabiyo. Yes, waa la jabiyey saa ujeedin. ugu dambeynna waa in lagu laabtaa easy. saan hore kuugu sheegay meel walba oo post education ma noqon doonto meel walba entry ka noqotay, laakiin ilaa aad shahaado kuu saxan tahay mooyaane iyo sharciyada kale oo aan gadaal kaaga sheegi doono insha allah. institutional candle sidaan ayaa labadan sharci ayuu leeyahay, sidaan ayaana loo baraa. maanta dhan ayaad suuqa ka heli doonta insha allah. muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa inoo balan. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.